ومالين أن صومرين نلاشينا doorasho dadweyne oon codkayna oon xura dhiibanayno maanta oon joogno dalkayna waxay sheegaan dadku 57 sano ka hor in doorasho dadweyne ay u dambaysay maanta waxaan jebinay derbi aan ku taameynay inuu naga hor wareego wax badan waxaan ku mahadinaynaa Ilaahay weyn dibadeedna waxaa mahadda kale iskale dawladda federaalka oo taabagelisay oo noo suuro gelisay inaan maanta codkayna dhiibanno codkayna wax ku dooranno qofka aan danahayna ka aragnay inay qabanayso aan dooranno xisbigaan u aragnay inuu afkaartayna iyo danahayna fulinaayo aan dooranno waxaan ugu mahadcelinaynaa dawladda federaalka oo ugu horeeyo madaxweynuhu waxaa mahadda kale iskale maamulka gobolka Banaadir oo ugu horeeyo gudoomiyaha Muungaab iyo maamulkiisa degmooyinka iyo guddiga doorashooyinka iyo dhammaan intii ka shaqaynaysay doorashada iyo arrimaheeda ومahadsantihiin aan leenahay xuraan nahay cidna soo qasato ma jirto qofka aan u aragno iyo xisbiga aan u aragno inuu danahayna iyo danaha wadanka uu ka shaqeynayo ayaan dooranaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir degan waxaan ugu baaqaynaa inay codkooda dhiibtaan cidda ay danayhaaya doortaan mustaqbalkooda ka shaqeeyaan goobaha loogu talagalay in laga codeeyo ay tagaan maanta waxaan taaganahay degmada Yaaqshiid codkaan dhiibanaynaa maanta waa maalin weyn waa maalin derbi weyn oo dawladnimada iyo shacabka u dhaxeeya aan jabinay waa maalin maan anko xura oo khiyaar leh aan kala dooranayno mustaqbalka soo socda dadkina hogaami lahaay aad iyo aad aan inta ka shaqeysay ugu mahad celinaynaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay hawshu sida ay u socoto waxaanu sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed oo gobolka Banaadir degan maanta aad haysateen fursadiini iyo jaaniskii aad sugayseen wax badan waa inaad ka faa'iideysataan soo qaadataan kaararkiina codkiina aad dhiibataan xisbiga aad isleedihiin waa idin wanaagsan oo adinkoo khiyaar la waanad u codeysiin waa mahadsantiin